السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن كل رجيني إن تكون سجنتي أمني أمان بش يبرواقه مال كستو الدنيا يضافها عالمك أتكشوكتي مقال كان يسجح وعن كل سوق بين دونا ترى بس تحرن أو مهمة أو أتكون مالك الشنكرتي نفط هذا حتى بس تحرن يوحيين يفهمتوا ده أنت بواحد كبران دونتا مقال كان يسجح أي كفائديسي وعن intaanad video ka bixin farxad weyn bay tahay inaan kugu marti qaado inaad channel-kan isaga wahada YouTube ka daawanaysid inaad subscribe aad saarto isla sidoo kale hadda Facebook ka daawanaysid farxad weyn bay noo tahay inaad page-kan aad ku xidhnaato like saarto meelahan salaad ka baari doonta inaad si faafisana farxad intaas oo dhan ka sii weyn bay tahay maalgashi marka la maqlo dadku inta badan ama marka ugu horeysa waxa maskaxdooda ku soo booda qof lacag leh dabadeedna qofkaasi wuxuu jecel yahay inuu lacagtiisa ka shaqo ganacsi ama fikrad ganacsiyeed taasoo rajaynaya lacagtii uu geliyay laba laabkeed ama saddex laabkeed ama afar laabkeed iyo wixii ka sii badanba inuu ka heli doono meesha iyada ah taas maalgashi loo yaqaan laakiin hadda waxaan ku bari doonaa tiraba saddex arrin oo muhiim ah oo aad naftaada aad ku maalgashan kartid saddexda arrin waxay kala yihiin sidan soo socda ومركا ugu horeysa qofka bil'aadmigi waxa uu ka koobay tiraba saddex waaxda koobaad waa maanka iyo maskaxda waaxda labaad waa ruuxda waaxda saddexaadna waa jirkan ku muuqda waa qoloftan waa gacmahan hadda ku salaamay qayb walibana waxay u baahan tahay maalgashi ama si kale aan u dhigay qayb waliba waxay kaaga baahan tahay inaad quudiso oo aad wax ku soo kordhiso si ay u korto una weynaato wax badanna oo faa'iidana aad uga heshid waariga koobaad maankaaga iyo maskaxdaada inaad quudiso maalgashataa waa muhiim maanka iyo maskaxda waxa lagu maalgeliyaa kow waxbarasho cusub waxaad barataa arrimaha diinta ka qusaya ee muhiimka ah ay tahay inaad barato waxa aad sidoo kale muhiim ah iyaduna in aad baratid arrimo haddii aad shaqaynaysid shaqooyinkaaga ka caawinaya si shaqadaadii aad ugu hormartid dalacsiin aad u hesho ugu yaraan booskaaga shaqo aad u ilaashatid waxaad baran kartaa luqad cusub oo aad dad cusub kula xiriiri kartid aad sidoo kale aad waxa weeye waayo cusub aad kala kulmi kartid sida luqadda carabiga oo kale luqadda ingiliishka oo kale luqado kale muhiim ah haddii agtaada jiraan iyaga laftooda baro si aad maankaaga aad u maalgashato waxaad geli kartaa tababaro waxaad geli kartaa workshopyo waxaad geli kartaa adigu wax kasta oo hab waxbarasho waxa weeye khuseeya inaad gashaa odmaankaaga ku korisa waa muhiim oo daruuri waa laga maarmaan si arrintaas aad hadhow mustaqbalka soo socda aad uga faa'iido waxaad maankaaga sidoo kale aad ku maalgashan kartaa akhriska wax inaad akhrido wax wuxuu doonaha noqday wax kastoo faa'iido leh oo ku quseeyo hadhow ka faa'iidi doontid inaad hadda aad ku tababarto hab akhrisku daruuri bay tahay waa muhiim ka maarmaysid arrinka labaad isaguna muhiimka ah haddii aynu ka hadlayno maalgashigu waa inaad maalgashatid ruuxdaada ruuxda waxa lagu maalgeliyaa oo quraata waa cibaadada oo ah wax kastoo ilaahay ku dhaweynaya ilaahay uu jecel yahay raalina uu ka yahay haddii ay hadal tahay iyo haddii ay amal tahay kiisa muuqda iyo kiisa qarsoon sida awgeed cibaado kastoo samaysa waxay dhisaysaa waxa weeye ruuxdaada maruu qofku ilaahay u dhawaadan ruuxdiisu awood bay yeelataa markasta qofku ilaahay ka fogaadana ruuxdiisu way daciiftaa hadday doontana way xanuunsataa ugu dambeeyna waa bay dhimataa ruuxdaada waxaad ku maalgashan kartaa waa cibaado waxaan ahayn laguma maalgelin karo oo laguma quudin karo ruuxdaada haddaba si ruuxdaada aad u quudiso waxaad samayn kartaa inaad cibaadooyinka hadda aad samaysid inaad geejiso oo aad hagaajiso oo aad adkayso waxay noqon karaan cibaadooyin kugu cusub inaad samayso oo aanad awal samayn jirin haddii aad salaada tukan jirtay sunnaha ku dar haddii sunnayaasha aad tukan jirtay salaatuleylka ku dar haddii aad salaatuleylka tukan jirtay waxa weeye waxaad ku darso salaatu duxaa sida awal adiga iyo hal abuurkaaga ku xidhan tahay cibaadada awal samayn jirtay sii kordhi cibaadooyin cusubna isku day inaad soo kordhiso arrinka ugu dambeeya ee muhiimka ah inaad maalgashato waa jirkaaga waa qolofta hadda waxa weeye ku muuqata ilaalinta caafimaadkaaga iyo daryeelka jirkaagu waa shay u muhiim ah inaad horumar wanaagsan aad gaadho sida awgeed ku dadaal daryeelka jirkaaga kuna darso ugu dambeyn waxa rasuulku kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay in waxyaalaha ugu horeeya ee qofka muslimka la weydiinay maalinta qiyaamo waxa kamid ah jirkaagii maxaad ku waxa weeye baaliyeysay maxaad ku dhamaysay maxaad waxa weeye ku baabisay jirkaagii muuqaalka isaga ah waxaan kugu soo gudbiyay tiraba saddex arrin oo muhiim ah oo aad ku maalgashan kartid naftaada si mustaqbalka aad guulo wanaagsan aad uga gaadho waxa weeye sanadkan soo socda iyo sanadada ka sii dambeeya kow maalgasho maskaxdaada iyo maankaaga maalgasho jirkan iyo qoloftan hadda aynu arkayno maalgasho ruuxda waxa weeye gudaha kugu jirta si aad hadhow aad u gaadhid nolol fiican oo raalli aad ka tahay ilaahayna raalli uu ka yahay intaanad video ka bixin farxad weyn bay tahay inaan kugu marti qaado inaad channel-kan isaga hadda YouTube ka daawanaysid inaad subscribe aad saarto
isla sidoo kale haddaad Facebook ka daawanaysid farxad weyn bay noo tahay inaad page-kan aad ku xidhnaato like saarto meelahan salaad ka baari doontaa inaad sii faafisaana farxad intaasoo dhan kasii weyn bay tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intayna ku kulmayno fiidiyowga xiga sidaas iyo nabadgelyo